weerar ku bilowday qaraxyo ayaa kooxaha nabaddiidka al-shabaab waxa ay arurnimadii hore ee saaka ay ku soo qaadeen xiriir ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee waqooyiga magaalada Kismaayo ilaa 60 kilomitir kaga beegan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ayaa durbadiiba iska caabiyay waxaana halkaas ay ku fashiliyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland 4 gawaari oo ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa inkastoo aanay wax dhibaato u geysan ciidamadii ku sugnaa halkaasi kadibna waxaa bilowday isku horimaad aad u xoogan iyadoona ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Jubbaland oo ay kaabayaan ciidamada danab ee commandoska ay markii dambe ku guuleysteen in ay kooxaha nabaddiidku ay gaarsiiyaan ilaa deegaanka Kamsuma waxaana halkaasi sidoo kale ka dhacay oo feer socday weerarkaasi duqeyn xagga cirka ah oo ciidamada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya ay halkaasi ka fuliyeen sidaad aragtaan gaarigan waa mid kamid ah gaadiidka ay adeegsanayeen kooxaha nabaddiidka waxaan halkaasi ku duqeeyay diyaaradaha dagaalka iyadoona halkaasi ay ku geeriyoodeen in ka badan 80 maleeshiyaadka al-shabaab ahi oo gaarigan saarnaa sidoo kale waxaa la gubay ilaa 3 gaadiidka dagaalka ahi oo halkan lagu gubay kuwa ay saarnaayeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo kamid ahaa kooxihii nabaddiidka ee soo weeraray xeradan deegaanka Baarsanguuni xog badan si aynu ugu ogaano weerarka saaka dhacay ee ay fashiliyeen ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay Xasan Maxamed Aadan Ciraaqi oo ah taliyaha ciidanka commandoska ee danab ee Jubbaland waxaana uu faahfaahinayaa sida ay wax u dhaceen wadamada Soomaaliyeed oo waxa weeyaan maaragtay gudanaya waajibaadka saaran ee muxuu ahaa waddaniyada ayaa waxa weeyaan saaka muxuu ahaa hawlgal ballaaran waxay ka soo qaadeen waxa weeyaan ilaa ma garanaysaa magaalada la yiraahdo muxuu ahaa Baarsanguuni ilaa Baarsanguuni ilaa meesha la yiraahdo Muuse Xaaji ilaa meesha la yiraahdo waxa weeyaan Araare ilaa Koban intaas oo dhan bay ciidamadu waxay mufaacaysanayeen nimankii cadawga ahaa ee soo weeraray xerada Baarsanguuni runtii waxa weeyaan nimanka cadawga jab iyo halaag baa halka ka soo gaaray waxaanu anagu maanta aanu ku guuleysanay inaanu mufaacado baabi'ino 75 mufaacadowga ka tirsan oo al-shabaab yaanu maanta waxa weeyaan dhimashadooda ummadda Soomaaliyeed una soo bandhigaynaa una cadaynaynaa waxa weeyaan dhaawacuna inta uu ka sii badan yahay ilaa waxa weeyaan ciidamada Soomaaliyeed iyo ciidamada caalamiga ee waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed caawinaya ilaa meesha ugu dambaysa ee ka guuleysanana ka harimayno ay ku astaysan tahay inaanu la dagaalano cadawga ummadda Soomaaliyeed ka harimayno meel kasta oo ay tagaan Jilibaanu ku galaynaa Kabsuumaanu ku galaynaa waxaanu meel walbaanu ku galaynaa ciidamada waxa weeyaan Soomaaliyeed hambalyo guulaha aad maanta gaadheen halka ka sii wada waxaanu idin leenahay ummadda Soomaaliyeed u diyaar garooba sidii nimanka cadawga la isaga qaban lahaa aad baad u mahadsantihiin darbaaxadii ugu cusleed ayaa kooxaha nabaddiidka al-shabaab ay saaka kala kulmeen weerarkan oo ay doonayeen in ay markaa ku soo qaadaan xiriir ciidamada xoogga dalka iyo daraawiishta ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni balse waxay kala kulmeen dhibaatadii ugu cusleed iyo dhimashadii ugu badneed oo kooxahaasi nabaddiidka soo gaara maalmihii ugu dambeysay waxaa howlgallo lagu baxsanayo kooxaha nabaddiidka ay ka soconayeen deegaanadan iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow oo hoostaga degmada Jamaame Aadan Maxamed Salaad raadiyaha telefishinka qaranka deegaanka Baarsanguuni